إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي بaan ku xamdinaynaa in naga soo qeyb geliyey salaada maqrib inaan jamaca la soo xaadirno kadibna ilaahay wuxuu noo idmay inaan fadhiisano masaajidka dhexdiisa oo majliskan aan diinteena macaan isku baraarujinayno aan ka wada qayb galno mathalu jaliisi saalixi wa jaliisi suu ka xaamil lmiski wa naafikh lkiir nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiid macnihiisu ahaa wuxuu yihi majliska wanaagsan ee ilaahay loogu dhowaanayo ee ilaahay kuu dhoweynaya ee diinta ilaahay lagu baranayo ee aakhirada la isku baraarujinayo iyo majliska xun ee kafladda iyo diin la-aanta iyo macsiyadda ee ilaahay ka dheeraynaya buu nebigu ka bixiyey mathal cajiiba mithaaladana ilaahay baa soo qaata oo nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa soo qaata ina allaha laa yastaxyii an yadriba mathala maa bacuudatan famaa fawqaha wadrib lahum mathala alxayaati addunya kamaa-in anzalnaahu min aلsamaa ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أمثال القرآن ويكون بدنتها لماذا؟ لأن بني آدم مثل وحكو فهمها سادرت يد النبي عليه الصلاة والسلام مجالس ونكسن إله اللغو دوانا دينت إله اللغو برنا masaajid ay culammadu ay noogu qabanayaan hadday tafsiir tahay hadday xadiis tahay hadday fiqi tahay hadday muxaadaro tahay hadday wacdi tahay hadday dhiirigelin iyo baraarujin diinad ay tahay mithaalka uu nebigu ka bixiyey waa sida ninka cadarka miskiga xambaarsan ee cadarka miskiga iibinaya ninka cadarka miskiga udgoon iibinaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam imaa waa inaad ka iibsataa imaa waa inuu ku siiyaa imaa waa inaad udgoon aad carfi wanaagsan iyo udug wanaagsan agtiisa aad kala noqotaa majliska xun ee ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu caasinaayo ee dadka muslimiinta lagu xamanayo ee ilaahay keyrkii lagu weyneynayo mithaalka uu nabigeenu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ka naafikh ilkiiri waa kan biraha tuma ee dabka ku afuufa buuqa weeyaan kaana biraha markuu garaacayo uu afuufayo dhimbiile ayaa ka duulaya dabkaas dhimbiilahaasi ama dharkay kaa gubayaan buu nebigu yidhi imaa majliska waxaad kala soo kacaysaa raayaxa xun oo qarhmoon oo natina ayaad kala soo kacaysaa buu rasuulku yidhi marka majliskan saddexdaa buu nebigu ku mithaalayay sal alla alayh wasalam sida ninka cadarka iibinaya imaa inaad cadarka ka iibsataa imaa inuu cadarka ku siiyaa imaa inaad udgoon carfi wanaagsan adoo jirhkaaga uu ka uraya agtiisa aad ka soo noqotaa majaalistan waa caynkaasay lamid yihiin buu nebigu leeyahay sal alla alay wasalam imaa waa inaad halkaa wixii khayr laga sheegayo aada wax ka faa'iidaa haddaanaad waxba ka faa'iidaysan oo mowduuca laga hadlaayo aada fahmi weydana majliskan faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum
kuwa kala fadhiistaan ama hooge sidaan ayakaba ugu naxariistaan ugu dambi dhaafay buu ilaahay malaa'igta ku leeyahay addoonkaa iskala fadhiyey ee waxa meesha ka socda ee khayr aan ka warqabin ee la fadhiyeyna la fadhigaas isagana ugu dambi dhaafa buu ilaahay leeyahay jamaaco saxaabada ka mid ah ayuu nabigu ku maray meel ayakoo fadhiya markaa buu nabigu ku yidhi maxaa meesha inii fadhiisiiyey iyaakum waljuluusa fi turuqaat jidadka aad fadhiisanaysaan baan iniiga digayaa markaa bay saxaabadu yidhahdeen meel kale oo fadhiisanoo ku sheekaysana ma lihin markaa buu nabigu yihi waa hagaage meeshaa meelaad kaga maarantaan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa iska siiya buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam shareecadda islaamku waa shareecad dhammaystiran weeyaan xataa dariiqii haddaad ka maarmi weyda jidadka inaad fadhiisatid baa lagu leeyahay dariiqa xaq buu leeyahay xaqiisa sii haddaana dariiqa xaqiisa aanad siin karaynin dariiqa inaad fadhiisato kuma bannaan maanta innaka mujtamaceennan inta masaajidda fadhida iyo inta maqaaxyaha fadhiya midkee badan inta maqaaxyaha fadhiisanaysaa badan kam yaa cuquul iyo awqaad lagu bixinayaa maanta dariiqada dhexdooda saxaabadii nebigu wuxuu ku yidhi dariiqa fadhigiisa meelaad ku bedelataan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa siiya mariya dariiqa xaqiisa markaasay yidhahdeen nebi allow dariiqu xaquu nagu leeyahay bal noo sheeg markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay qadu lbasar maxaarimta gabdhaha iyo ajaanibta dariiqa maraysa indhihiina ka laaba buu rasuulku yidhi ha eegin oo ha odhanin wazayannaaha linnaadiriin waa inaad tidhaahdaa waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim mu'miniinta waxaa la amray dariiqa markay marayaan inay indhahooga xafidaan haddaad indhahaaga xafidid qalbigaaga wixii ku jiray baad xafidaysaa laanna isha zinadeedu buu nebigu yihi waa daymashada dhegta zinadeedu waa dhegaysiga carabka zinadiisu waa sheekada gacanta zinadeedu waa taabashada lugta zinadeeduna waa u socodka intaa oo meelood oo jawaarixa ayay zinada ka bilaabantaa qofku intuunan zinadii weyneed ku dhicin daymashadu waa zino oo waa zinadii aragga buu rasuulku yidhi haasaawuhu waa zino waa zinadii carabka dhagaysigu waa zino waa zinadii maqalka qabashadu waa zino oo gacantu waxay zinaysan waa goorma markaad gabadha ajaanibka aad iska taagatid marka nebigu wuxuu ka bilaabay dariiqa xaqiisa gadu lbasar indhihiina laaba buu rasuulku yidhi sal lla alay slam indhahana ma laabo oo ma xafido ilaa qof mu'mina mooyaane waqul lilmu'miniina yaguduu min absaari gadu lbasarka waxaa lagu amray waa dadka mu'miniinta aragga ma ilaaliyo ilaa qof iimaan la mooyaane kafu ladaa buu nebigu yihi dhibaat dadka dariiqa marayana gacantiina ha ku dhibin ishaadii ha ku dhibin gacantaadii ha ku dhibin raddu salaam dadku hadday ku salaamaan salaamta u celi walamru bilmacruuf dadka wanaagga fara buu rasuulku yidhi wannahyu can ilmunkar dadka jidka marayaad la kulantaan wax sharcigu inkirsan ayagoo dhaqankooga ay ka muuqatana ka reeba buu nebigu yihi munkarkoo ka zuuliya suuqa magaalada madiine nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo maraya ayuu arkay inan dhallinyaro oo reer madiine ah fargal dahab uu gacanta ku sidaa deedna markaabuu nebigu ka siibay dhulka ayuu ku tuuray nebigu wuxuu yidhi ayacmidu axadukum ilaa jamratin min naar fayajcaluhaa fii yadihi midkiin ma u kasayaa dhimbiil naara intuu qaato inuu gacantiisa u gashado markuu ka tuuray waa macnuhu waa maxay ummadayda raggeygana buu nebigu yihi dahabka inay xidhaan waa laga xarimay haweenkoodana waa loo xalaalayay buu rasuulku yidhi usaliya nabigeena sala allahu calayhi wasalam sidaasuu uga siibay yarkii yara fargalka dahabka innaga maanta imisaan munkar arkaynaa ma zuulinaa carabka ma ka zuulinaa may gacanta ma ku zuulinaa may qalbiga ma ka inkirna may bal waxay iska noqotay nolosheenni maanta waa iska caado weeyaan waa iska caadi waxan salaadoo laga tagaa waa iska caadi dadku agtaada macsiyo ku sheekaystaa waa iska caadi dhallinyaradii sidee doonaan dharka u xidho timahana see doonaan u xirtaa waa iska caadi waa caadi buu ku leeyahay waa mujtamac o dhan baa sidaa noqday maxaa la qaban karaa wuu zuulinayay nebigu sal alla alay slam munkarka markuu arko gacantiisu nebigu ula tagaayay gacantiisuu kaga saaray fargalkii deedna dhulkuu ku tuuray markaasuu nebigu yihi midkiin ma karayaa dhimbil naara intuu qaada inuu gacanta gashado hadalkaa markuu yihi nebigu iskaga dhaqaaqay ayay saxaabadu ku yidhahdeen yarkii yaraa markuu nebigu tegey kadib dahabkaaga qaado oo intafic si kale uga faa'iidayso uga intifaac iibi ciddaa doonto sii markaasuu saxaabigii wuxuu yidhi laa wallaahi laa aakhuduhu waqad taraxahu rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam wallaahi inaanan qaadan buuhi qaadani maayo maadaamuu nebi maxamed gacantiisa uu igaga siibay oo dhulka ku dhiftay uu dhulka ku tuuray wallaahi inaanan qaadanayn buu yidhi
هذا إنه قاطع ويبيو ولعكتي سنة ومارك تاني الملك لو استعماله كحرام ما هنا ومباح وأبنا أنتهي إنه قشدون بلغ حرمي لكن قدرين النبي محمد أي قدرين يا بويري والله أنا قادنا يقولوا وايو نبي محمد بايق التوري ما دام النبي محمد قاعد يسولك وكتوري والله أنا دبوا قادنا ما يبوي قدر النبي قال إنك الله نفهم سي وصلي النبي صلى الله عليه وسلم عجيب تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة وأنت ذاك منه مطيع إلهي يا نبي جعيل دودا ما أنت مسلمين توشيغنا يا وعرب كان كأشهادنا لكن أفعاشنا هذه لا إيغو وأفعاشنا وخلاف سنتهي كتاب إلهينا وخلاف سنتهي سنة النبي وخلاف سنتهي مركا جعيل هذا عن شيغنا وجعيل بين هذا النبي محمد جعشه ودعي له نبي نكو جعيل يحيب أدعاء قصة كوساب سنة نكي جعيل كي سأل لو قشة كينجر قيس الليلة نحمرتي نكي مركا قيس أيا جعيل كي الليلة أيوه واش درادي مركا سودر بيدس كسي حنجري مالين مالمها كمدا وحال أركي إسقو جدار بدون كنا يا جدار درب بدون كنا يا مركا سأل لقول ورقيسو ما أنت والد علي بوحي كوكي سدرب جينا بدون كتير مركا سأل أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما وحول جدار كان عندهم كنا يو إسقى ما هو حنو جدون عندهم كنا يه جدار كان قداشي سليلة آيات دقن وجعل كليلا عندهم كنا يا بول مالك كلا الله أرجسوا أي هيسون عندهم كنا يه ورأي كنا ما أنت معاكم نفس الليلة وحول أقل كليلا أي كجرتو كسب حي يكسب حي محبة أج هذا الإله يجعل لها والنبي عيسى أن جعل لها صلى الله عليه وسلم مجتمعين يدتكين يدلكين هذه صلاة اللي أقدموا مقالة يتول لك بابورة اللي جوجيو أو باب بسسك اللي جوجيو أو مقايلها اللي حلو أو دكانات اللي حلو أي مساجد عمر ملهي مساجدنا إنما قادين بل وليس سوق لها يولون لها أنا كنا هنتكلم جمع مسكين يبون نجبوا حيه كسر درر ولا صلاة جمع عندما كنا لو كان حبك صادقا لأطعته هذا جعلك ودبك يا هي وضع لهي إن المحب لمن يحب مطيع نبنك وجعل هي وضعاي اللي يرى كوبد جعل كوا كوبد عياري سكوي كيسيان كوا هي صح جعل كوا فنانين اللي يلعب سكوي كيسيان كوا سياسة جعل سياسيين تسوي كيسيا كوا نبي محمد جعل نبي محمد تسوي كيسينا يا مقالة المدينة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وهو أركي المدينة يهودي لدقن إلى أنصار أو مالين عاشور اللي إلى صوميسا وتوقع محرم وياه مرقاب النبي كويري وما يهود مالين كان يصوميسا مرقاب صلى ومالين إلهي النبي موسى وكبت باديي ومالين النبي موسى يري بن إسرائيل إلهي جل وعلا وبدأ الدلاعي يا طريق إلهي وجه حيبدأ لقبت باديي هلاقة عدو جوجي فرعون الله هلاقي وياه نبي موسى صومي عليه السلام أنا كنا وحنا صومينا شكريا ما هنقبل صومينا ودين تيدي النبي جاي ما كنت ضينا مركز النبي وصحابة سكويري أنك أوجه حق لموسى صوم عاشوراء كل ده بهدان قالنا سجالات كقول ضرب رسول كويري يهودا محو نبي كوكو خلافي عاداتكم خلافي بل وحكو خلافي عباداتكم كوكو خلافي مجتمع مسلمين ترى ما انت عالم كما شيء دونان بها جوغاني دل يرد ان مجتمع انه انت بدل وحي لساميه ورا قلبك طبعا عاشوراء وحي وصوميان با لا يري ومالدي نبي موسى الهي بدباديي طريق الله غفر بدا فرعون وجيشه لغا هلاغي marka waa shukri bay u soomayaan marka nabigu annaka nabi Muuse uga xaq leh waa soomayna Ashura sooma kal dambe hadaan gaarana rasuulku yiri sagalaadkana waa ku darsan yahuuda u khilaaf cibaadadii nabigu yahuuda ku khilaafay inagana maanta dhaqankii baan ka qaadanay tarbiyadii baan ka qaadanay tacliintii baan ka qaadanay zawaajkii baan yahuuda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigi dahabkii nabigu uu ka tuuray inuu qaato iska diiday limaada waxa uu garanaya nabi maxamed qadarkiisa sallallahu alayhi wasallam wajiil kaasi qarn al-awwal wa waxa lagu gaari kareen bay kamid tahay arimahaasi
inay gartaan nabi maxamed qadarkiisa calayhi salaatu wasalaam. maalin maalmaha kamid uu nabigu ku yidhi nin ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga. markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicama wa quratu caynin buu yidhi oo nabi allow adiga ayaa ku heli kara buu yidhi, adiga ayaa ku heli kara. markaabuu nabigu yidhi anigu ma rabiye waxaan u rabaa Julaybiib baan u rabaa Julaybiib. Julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada Madiina oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaan dabeecadiisa oo dabeecad waxa lagu yaqaan xoogaha akhlaaq xumo ah. dadka ayuu la kaftami jiray, xataa haweenku la kaftami jiray. markaas dadka reer Madiina oo dhan waxa isku sheegeen gabdhihiina Julaybiib ha iskaga dhisina. waa nin dabeecadiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftama. marka waa nin akhlaaq xun weeyaan, akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayn. waa lagu sheekaysanaya, Madiina oo dhan baa ku sheekaysanaysa. waa ninka ninku nabigu leeyahay ninkii reer Madiina inantaadii aniga isii. markaasuu saxaabiga yidhi nabi allow adiga ma inantayda ayaaba kuu heli kara. haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo, indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi. markaasuu nabigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi Julaybiib baan la doonayaa Julaybiib. markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha, hooyadeed baan ka talagelinayay ii kaadi buu ka yidhi, hooyadeed baan la soo tashanayay. waxaa la yidhi reer Madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayay, ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allow haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar, haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar. dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan. xabsa binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar binu khataab intuu socday ayuu cusmaan u sheegay ku yidhi haddaad doonto inantayda xabsa waan kuu dhisi. markaasuu cusmaan yidhi waan soo fikiri, isku noqday. markaasuu yidhi yaa cumar waan fikirayo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow, jazaaka allaha khayr buu ka yidhi. haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xabsa, wuxuu yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonto inantayda xabsa waan kuu dhisi, waa kuu diyaar. markaasuu abubakar uu ka aamusay. limaada muxuu cumar inantiisa xabsa uu cusmaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa? ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadha da'dii gabdhaha lagu guursanayay waxaa u soo haasaawaya aabbaheed, walaalkeed, adeerkeed iyo abtigeed. halka inagu aan leenahay soo eegeego waxaan idhahdaa ya aabba mid shaqeeyo uunde ya weliba hay-adaha u shaqeeya, hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan beryahan moogtahay. laa ilaaha ila allah. soo eegeega maaha adaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha. waqarna fii buyuutikunna, inantaada waa inay xagga dambe fadhidaa. jilbaabka ugu horreeya gabadha muslimaddu ay xidhanayso waa inay guri joog noqoto weeyaan. baahideeda wixii dibadda ka yaallana markay u baahan tahay ama aabbaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooye la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya oo soo raacaya. limaada maxay u soo raacayaan? maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inan yahay muslimadii, bal adigu ku ilaalinaya waa gaardagoorkaagii, waa kii ku ilaalinayay. adigu kaa ilaalinaya, cadowgu kaa ilaalinaya, tuugtuu kaa ilaalinaya, dadka mujrimiintu kaa ilaalinaya, fasaqadu kaa ilaalinaya. sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo, meelaan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee muuminadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay. aday ku ilaalinaya. innagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamka dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tidhi. aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kugu filan, sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhida. soo doon doona maaha. abibakr cumar isagaa u doono u haasaaway inantiisi. inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceeb maaha. maanta innaga xaggeena waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar usoo haasaawo waxaa la is odhan buu isleeyahay war matu cagal u hayaa u nagu camaynaya. cumar baa socda, cumaan u bandhigay, cumaan uu jawaabay. abubakar buu u bandhigay, abubakar waa ka aamusay. muddo yar kadib
waxaa soo doonay xabsa radiyallahu anha nabi maxamed baa soo doonay calayhi salaatu wasalaam daadna markaa uu nabigu guursaday markii guurkaasi uu dhammaaday ayaa maalin dambe cumar iyo abubakar baa kulmay abubakar baa hadalka qaatoo yidhi yaa cumar malaha qalbiga waxbaad igu haysaa markaasuu yidhi haa waan kugu hayaa horta abaan cuthmaan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafi uu siiyey adigana waa kuu bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xafse hadal hayaan ogaa markaas sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xafse uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuulallah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu marka u weydiistuu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu yidhi nicima wa qurratu caynin yaa rasuul allah waa nicmad isheedun way ku qabo way ku raaxaysanaye waad heshaa markaasuu nebigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiib julaybiibna waa ninkan nii soo sheego waa la yaqaana dabiicaddiisa markaasuu julaybiib haa u istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya dee baliikaadi markaabuu nebigu yidhi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu yidhi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu yidhi rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tihi nicama wa qurratu caynin wa qurratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tihi hadda ayuu u rabaa markaasuu yidhi julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tihi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kalaa soo doonay waan u diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiino dhan lagu hadal haye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisamayne qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aniga i bixiyey oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahay i bixiya bay ku tidhi markaasay ku tidhi islaantii waa run hadalkaasiye orodoo nebiga u sheego ku dheh halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raalli baan kala noqonay markaasaa saxaabigii baa nebigu u yimid oo yidhi nebi allow inantii julaybiib waan siinay guurkii uu julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxaa dhacday fasca waxaa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxaayay buu markaa julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jebiyey la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nebigu saxaabadii ku yidhi war anigu nin baan tabayaa war nin baan arki lahay markaasaa laga yidhi nebi allow waa ninkee markaasuu julaybiib awaya markaasaa meydkiisii la doondo waxaa la arkay isagoo 7 mushrikiina intuu dhulka dhigay isagiina markii dambe lagu daro meyd oo dul yaala markaabuu nebigu yidhi wallaahi kaase julaybiib anuu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nebigu hadalkaa ku celiyey anigu julaybiib anuu iga mid yahay ana isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raalliga ka ahaabuu u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqayga weeyaan markaasuu nebigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu cidhiidhi weligeed ha ka gelin buu rasuulku yidhi gabadh carmala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yidhahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane laana ducadii nabigeena ku dhacday sal alla alay wasalam marka nebiga calayhi salaatu wasalaam qadarkiisay garanayaan qiimihiisay garanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa madiine isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nebigu yidhi awrka maad iibinaysaa haa imise inta way heshiiyeen markaabuu nebigu ku yidhi soo raac awrka lacagtiisii baan ku siinaya waa nin reer baadiyaha ma garanay nebiga sal alla alay slam magaalada madiine wuxuu u soo galay awrka inuu iibiyo hoggaankii buu hayaa rasuulku daba socda
markaa nabigu degdegay maadaama nabigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkii hore lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu u socdaa maadaama safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa oo daba bildhaansanaya markaa nabigu soo daymooda wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taagan oo awrkii ka iibinaya markaa nabigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nabigu ku yidhi war xaggee soo nigii kale iibsanay ma ninkii reer baadiya yidhi gamaad iibsan markaa buu nabigu waan heshiinay tama albayc qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaan hadda iila socotay keliya inaan lacagtiisa kusoo siiyo markaasuu ninkii yidhi may igamaad iibsanay markaa buu nabigu le war waan kaa iibsanay muslimiintii reer madiina o dhan baa kusoo ururay waa la isku dhegaysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsanay nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabigaa yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaa buu nebigu dadka sidaa u eegay khusaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo reer madiinaa soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maraga furaaya markaa buu nebigu sidaa u eegay khusayma yaa khusayma markaan ninkan kale iibsanayna meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yidhi yaa rasuul allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadamkan aad baan u sheegay buu yidhi ma bayciga addoonkan ina dhex maray baad been ka sheegay inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tiridda aad tidhi waan kaa iibsaday intaa baan ku sadaqay buu yidhi markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaaba khusaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey shahaado ayuu siiyey shahaadatu khusayma tacdilu bishahaadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay khusayme keligii baa ku filan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam leanna saxaabadu waxay garanayaan nebi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yidhi oo nebi maxamed baa sidaa yidhi boqolkii baad gaalada qureysheed adu wadaa markaasay tihi may kalla xaashaa hay wax sir anu nigama sido mee sir baad naga wadaa iyo nigama sido markay qof run u sheegaya iska dhigtay ayay labadoodii ka soo noqdeen baa la yidhi kolka in yar soo noqdeen cali baa yidhi oo ma warkeegaan rumaysanay oo warkii nebigaan beenaynay buu yidhi nebi maxamed baa nagu yidhi sir aan leenahay ayay gabadhaasi qurayshta mushrikiinta u wadaa ee sirtaa ka soo qaada maadaamuu nebi maxamed uu yidhi ma warkeegii intoon rumaynay ayaan warkii nebigana been ka soo qaadnaa buu yidhi sawna ka halaagsanay ma haddaan sidaa ku noqono cali baa ku soo noqday oo ku dhiiradoo yidhi sirtaa aad naga wadid nebi maxamed baa ku sheegay haddaad sirtaa halkaas soo dhigi weydid gacmahayaa kulayman buu ka yidhi markay aragtay labada nin dhiiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nebi maxamed uu soo sheegay boqolkii boqol ay u rumaysan yihiin ayay tidhi ii kaadiya haddaba intay sii jeesatay mara timihii intay furtay timaheygii tidcanaa ayaa warqad inta alle ka soo saartay warqadii bay nebiga u keeneen sal alla alay wasalam yaa rasuulallah waatan gabadha sirtay waday warqadda ninkii qoray masaajidka nebigu dhex fadhiya xalaqaduu dhegaysanaya waa la furay waa la akhriyey risaaladani waxay ka socotaa xaatib ibn abi baltaca waxay ku socotaa quraysh bay ku socotaa waxau ka warramay marka uu quraysh uga warramayaa sirtii nebi maxamed sirtii ciidanka dowladda islaamka sirteediiba gudbiyey markaasuu nebigu sal alla alay wasalam midabkiisaa bedelmay rasuulka halkan cumar baa joogo markiiba kacoo yidhi yaa rasuul allah ninkan munaafiqee nagu jira ee sirteennii gaalada u sheegayay anaa qoorta ka goynaya igu fasax buu ka yidhi markaabuu nebigu yihi cumar u kaadi buu u kaadi degdegina yaa xaatib labayk yaa rasuul allah saasuu leeyahay labayk yaa rasuul allah sarakac buu ka yidhi istaag sirteenna
inaad gaalada u sheegtay maxaa kugu ajburay bal ii sheeg buu ka yidhi wuxuu yaa rasuul allah waan sheegay runtana waan sheegay buu yidhi ragga muhaajiriinta reerahoogii ubadkoogii makay kaga yimaadeen nin walba qabiilkiisii baa maka u difaacaya ubadkiisii iyo reerkiisii iyo hantidii maka uu ku lahaa reerkiisii baa u difaacaya aniga magaalada maka degaankayga maaha ubadkayga iyo reerkayga baa quraysh kaga dhex imiday haddii waxaan is idhi haddaad intaa yaroo sir ah aad gaalada u sheegtay qurayshta waxay is odhanayaan xaatib inninkuu inaga mid yahay reerkiisa daranyada uga dhaba intaasuu baan uga jeeday bas inay ubadkayga iyo reerkayga ii badbaadiyaan oo ii nabadgeliyaan baan uga dan lahaaye gaalnimo igama ah munaafiqnimona igama ah bal waxaan ahay muumin baan ahay nebi allow sirtaada sababtaan u sheegayna taasuu baa igu kaliftay bas ina reerkayga la ii nabadgeliyo oy quraysh igu xisaabtamaan ay yidhaahdaan ninkaasi annagu meesha noo joogaayo reerkiisa daranyada uga dhaba oo ha ka dhibaataysanin ha ka dhibina markaa buu nebigu aamusay sal alay wasalam ila ninkani dembi weyn buu galay sirtii dowladda islaamku gaalada u gudbiyey markaasaa nebigu aamusay isla markii nebigu halkii fadhiya ayaa fii suurati awaa'ili suurati almumtaxin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda ilaa aakhiri alaaya suuradda awalkeega aayadaha ugu horeeya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu ku caddeeyey inuu ninkani xaatib uu ka mid yahay duulka mu'miniinta ilaahay nebigu rumaysan inuu ka mid yahay buu ilaahay caddeeyey iimaankiisii baa ilaahay caddeeyey iimaan baa loo markhaati furay inuu muumin yahay markaasaa looga digoo la yidhi kaa isagoo keliya maahine bal mu'miniintoo dhan waxaa la amrayaa inay gaalada maadaama gaaladu ay yihiin cadowgoogii iyo cadowgii ilaahay cadowgii rasuulka inaysan awliyaa ka dhigan iyo asxaab ka dhigan oo ay saaxiiba ka dhigan maanta laga bilaaba markaa buu nebigu cumar buu eegay yaa cumar xaatib waa kaasoo qur-aankii baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shaafiyey oo qur-aankii baa caddeeyey iimaankiisa dembiga u galayna inuu dib dambe ugu noqonna waa looga digay laakiin cumarow waxaad ogeyn ahlalbedri buu ahaa ninkani waa reer beder waa 313 nin ee dagaalka beder igala qayb gashay weeyaan ahlalbedrina ma taqaanaa darajadooda waxaa la yidhi yaa ahla bedrin ifcaluu maa shi'tum faqad gufira lakum yaa ahla bedrin waxaad doontaan ba sameeya iniga dembigiinni waa la dhaafay waxaad doontaan sameeya macnuhu maahin dunuubta ku dhaca maaha ninka bedriga hadduu gafana baa la yidhi uu dembi ka dhacana su-ul khaatimo ku dhimani maaye xusnul khaatima iyo ku dhiman doona marka u dambaysa laanna maalintaasaa ilaahay aqbalay maalintii tirada muslimiintu ay yaray ee gaaladuna ay soo duuleen iyagoona dagaal ku talagelin ayuu nebigu u saaray macrakatu beder inay soo qabtaan ciira quraysh dagaal umay jeedin laakiin ilaahay baa qadaray dagaal meesha inuu ka dhaco waxay la yimaadeen niyadda bay la yimaadeen diinta inay difaacayaan xataa nazala jibriilu calayhi salaam maalin maalmaha ka mida jibriil baa soo degoo yidhi maa tacuduuna ahla albeder fiikum yaa muxamed raggaa dagaalka beder kaala qayb galay agtiina qiimahay ka leeyihiin bal ii sheeg oo halkeed maxaad ku aragtaan markaasuu nebigu yihi min afdali almu'miniin mu'miniinta kuwa ugu fadli badan inay yihiin baan u aragnaa buu rasuulku yidhi markaasuu jibriilna yidhi wakadalika miman shahida badran min almalaa'ikati sidaasoo kale annaguna haddaan malaa'ig nahay malaa'igtii dagaalka beder soo dhaadhacday nagala qayb gashay waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa malaa'igta ugu fadli badan taqdiir wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi ay maa carafuuhu xaqa macrifatihi wamaa cadamuuhu xaqa cadamatihi qadarkii ilaahay uu lahaa manu garan maanta qadarkii nabigeenna uu lahaa calayhi salaatu wasalaam manu garan laakiin raggaasaa gartay qadarkii rasuulkeena qadarkii nebi maxamed bay garteen makaanadiisii bay garteen islaamnimada nebigu ku lahaa xijaabad toobin buu nebigu istoobay maalin tashti dhan baa dhiiggii nebiga laga buuxiyey cabdullaahi bnu zubayr buu nebigu u yeedhay awal mawluud fi lmadiinati almunawara weeyaan zubayr bnu cawaan baa dhalay hooyadiina waa asmaa binta abi bakar cabdullaahi bnu zubayr buu nebigu u yeedhay dhiiggayga qaad meelaan cidna ku arkay ku soo aas maxaa loo dhiibay dhiiggii ka baxay jirka nebi maxamed baa loo dhiibay soo aas sala allahu calayhi waaalihi wasalam markaasuu dadkii intuu iska eegu meel cidlo kolku ula baxay ayuu soo tartiibiyey tartiibta ma fahmaysaa ya
وصار نقضي هاي عبد الله بن الزبير ديجي halkaad ku soo qarisay bal sheeg markaas meel wax qarisa meesha ugu qarsoodi fiican ma ku soo qariyay buu markaas halkee markaas caloosheedii buu waan cabay buu dhiigay dhiigii nabi maxamed dhulka inuu ku shubo waa u diiday taas wala fadhiistay markaas wali ma sharabtahu maxaad u cabtay buu kaydi ويل لك من الناس وويل للناس منك بكيد ويل لك من الناس وويل للناس منك يا ابن الزبير عدة دقال كو قادنا وي بعضي عدة دقال كو سو قادنا وي بعضي برسول كو يقول maxaa galay jirkiisa maxaa galay kulata dhiigii nabiga galay jirkiisa nabigana waxay yiraahdeen culimadu nabiyada jirkooda wuxuu ilaahay galiyay 40 nin oo ahlul janna quwadooda ilaahay galiyay ninka ahlul jannahana boqol nin oo rag adduunka u dhigmaa baa la yiri bal xisaab waa imsan 40 nin oo ahlul janna quwadoodii baa la siiyay nabiga nin ahlul janna ana he waxa uu la quwadiyaa boqol nin oo rag adduunka Musa alayhi salaam labadii nin ay saqabatay qibtiga iyo maartana tii reer Israa'iil aha xabad feerusda ugu dhiftay fawakazahu Musa faqada alayhi naftu way ka dhacday waa feer kaliya markaa uu nabigu Abdullah ibn Zubayr cidda dagaalaad ku qaadana way baaday cidda dagaalku ku soo qaadana way baaday uu kagay maanta laga bilaaba jirkaagiina naar waa ka xorobo rasuulku jirkaagiina naar ka xorobo khalaas fursad bay heleen iyagu fursadda way ka faa'iideysteen yaa muslim inaguna fursaddan maanta haysanaa fursaddan haysanaa waxaan nahay ummadii nabi maxamed baan nahay awalkeegii ma nihin bal aakhirkeegii baad moodaa inaan nahay aakhirkeegii ku dambeeyay نحن السابقون ونحن الآخرون بالنبي يقولي أنك السابقين وجنة أبو هرجلينا أنك أنا ومضى مضى بين أبو رسول الله أبورك أنا أنك أبو هريني أبورك ومضى أنا أنك أبو ضم بيني وأمتي ومضى أبو ضم بيسبنا هي ونحن السابقون جنة أنك أبو هرجلينا أبو رسول الله ما أنك قيامة سيأتي على أمتي زمان المتمسك بدينه كالقابض على الجمرة زمن آية من دون أبو نبي يقولي أمة دينا نك استرادة دين تكون دغن ودين تبرأ ودين تكون عمل فل ودين تدني نك استرادة وحول من دون دون ندمع يا دمع دبين نارا ملهي كرا دبين نارا نهي ولا من دون دون برجع بسحابة كوري على زمن كاس زمن كنيك سنة هذا قبسن دونا ولا من دون دون ندمع لودي بي دمع لهاي كري مايو ما تسنيه النبي قال لهاي كري مايو وهي مجتمعي ما درك أو ملمي أو كم ملمي ما رك ثاني تذكر رجال بيت قال ملمن أساسا نمسكوا بحق المي سداس بالقاركين واحد يقولوا عيسان إني دي بدها الوفاء أربعة يقولوا عيسان يا إلهه هي لا بدي عيال فيزان وحرية إلهه يقصي قوة سيقال فأساسا نمسكوا بحق المي زمن كان ما سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ترى أنا يوم بتكي غير كجوا فدك مينا مجتمعي كلا كغالبا مركز الصحابة ويراد زمن كاس نك الدين تقب صدق كوات كذا أجر جيس الله شك مركز كنتن 50 رجلا كنتن أجر كوجا إلى هو قريب رسولك كي نصحابي أسرك عيري ما كنتن أنك مسوا كنتن إياك ما كنتن إنك أبو كل رسول كنتن قرنينا ما تجوتن أجر كل قادة دونا وإذا ما كأيك الدين توفرش هنا فرش نبي جاي أركان عليه الصلاة والسلام ملاك صوت جاي سأركيه قرآن كقول بآية لقوا صوت جنيه شريعة قدام ما يصير ما يسي مالك دين نبي جاي قرآن كلقوا صوت جيه اقرأ أو جوه رئيسي آية دي قرآن كقدام بيجينا وعي علماء كشجع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عرفة كسودة عرفة مدير كدن النبي قال بيضا وكيت خالدنا أواخر وآياته وقدم بين النبي كسودة كمتها الآيات أصلي اليوم أكملت لكم دينكم إلى هاي بقوله ما أنت دين ديني من النيد ما يشتري وأتممت عليكم نعمتي
nicmadaydiina dushiina ayaa ku dhamaystiray nicmadu waa quraanka nicmadu waa sunnada nabiga nicmadu waa islaamnimada nicmadu waa hidaayada nicmadu waa macrifada ilaahay innaka maanta muslimiinta marka nicmad la hadal qaado maxaan u haysanaa nicmad ya adduunyo nacam adduunyadu waa nicmad mu'minka adduunyadiisa xalaashu waa nicmad laakiin waxaad ogaataa iyadoo nicmada haddana waa fitnada adduunyada وأما بنعمة ربك فحدث إمام قاضي عياض كتاب الشفاء في تعريف حقوق المصطفى آية أوحو شيء وأما بنعمة ربك فحدث مركي نبي جينا آية أيكو صوتتي أي نبي صحابتي سكويري أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا مالك قيامها خلق يقولك أي كسو بحي دونان كوبه الرجال كسو بحي بدوانك خطيبهم إذا أنصتوا maalinta bini aadamka la aamusiin doono kow hadlaya buuri waa aniga shaaficuhum idaa xubisu marka dadka la joojiyo cadceedda halka ay naga gubaysa madaxooga sidaa loo duldhigo ee 40 kun oo sannadood banka qiyaamaha la joojiyo ee dhididka qofka ka baxay 70 xusul dhulka intuu galo dhididkiisu soo bixi doono ka maalinta dadka u shafaaعad qaadaya ee u wargeynaya buu nabigu waa aniga mubashiruhum idaa aisu maalinta dadku ay quustaan ka u bishaareynaya buu nabigu waa aniga liwaa alxamdi biyadi yowma alqiyaama calanka mahadda maalinta gacanteedu ku jira calanka mahadda aadam calayhi salaam oo abulbashara ibraahim alkhaliil calayhi salaam oo nebi ibraahim aad garanaysaan abulambiyaa labadoodaaba ka soo qaad buu nabigu yidhi maalinka qiyaamaha calankayga hoos joogsanaya buuri calankaygaas walaalayaal nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam han garana qadarkiisa وأولادنا هم برنو محبة نبينا عيالنا هم برنو وإنكنا محبة نبينا هم برنو وصلي سهم برنو وسنه سهم قادرنو ومغلي سهم زمن كان بدنا مسلمين إيه هذه لقى على سيو قار دين تعايا قار ملاك تعايا قار إلهي أبو ربا فكتها جيا قار نبي محمد عليه الصلاة والسلام أي درجة ديسا هي مارك تاني عيب لهين لكل شيء جيا والله ثم والله maalin maalmaha kamid ah masaajidkii nabigeena nin munaafiqa intuu asxaabta sidaa u eegay qaswad baa lagu jiray qaswad ayuu yidhi saas u eegay saxaabadii kuwa quraan akhrinaya buu arkay yaa macshar alquraa buu keen war ururkiina quraan akhriska badan lahow marka cuntada la cunayna maxay niga cantuuga weyn oo niga cir weyn marka dagaalka la galana maxay niga furaysan buu keen intaasuu yidhi bas la soco marka dagaal la galayana maxay niga furaysan marka cuntada la cunayada maxay niga cantuuga weyn oo niga cir weyn saxaabi baa hadal ka maqlay lacallahu umar inuu ahaa markii uu nabiga u sheegay markii ninkii munaafiqi wuxuu yidhi de maxaa nabiga igu diri buu keen waa kaftamaynay uun waa iska yar baashaalaynayo waana soo daallayo hadalka sheegada waa lagu yar nastaaye markaa buu nabigu bedelmay qur'aanka ilaahay soo dejiyey qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu قد كفرتم بعد إيمانكم قلوا حد كتر هذا ما إلهي هي آيات كيسا قرآنك هي رسول كيسا أيها هاي كوا كل الليلة كل جزء عذر دار قاسم نقص عني ما يبلغوا يري واد قالوا ذين بلغوا واد قالوا ذين يا معشر القراء إرجعوا قالوا يبلغوا فرس كوين أوركين قرآن أخرس كبدن لهم مرك الله تقال لنا محاي نقفوا ليسن مرك عمتل عنا محاي نقعر وين لا بدا كلمة دود أو جزء ويري أيا إلهي عدي لك أسألوا قالوا خلاص كإلهي أفكوا تاجنا كور كالنبي محمد أفكوا تاجنا كور هل كوكا سو قال يا دين الإسلام كبركس ما عرفناه لواء الحمد بيدي بنك قيام أبو نبي محمد لا يا هاي على كما هذا مالنت أنا هاي أنا اللي هزوجا ومالنت خلقك عرعير يا آدم بيقول يا نو شفاعة قال dhibtan anaa inagu wacan buu leeyahay jannadii dembiga aan galaad kaga soo baxdeen anigu ma lihi ordo qeyrkay u taga ergada anu maanta ma lihi nuux bay u tagayaan nuux waxa uu leeyahay adduunka dusheedii anigu ducadaydii waa aniga ummaddeeda ku habaaray ducadayda maanta la aqbali maaye ibraahim alkhaliil u taga ibraahim baa loo imanayaa saddex been baan adduunyada ku sheegay tii in laygu qabtaa ka baqayaaye ordo qeyrkay u taga muusa loo imanayaa muusena wuxuu leeyahay anu qof bini aadana dilay buu leeyahay
عيسى ابن مريم بالله إيمان عيسى عذر دار شيئا مايو لكن وحول أنه مليه مانتا مركز النبي محمد يري أنا الله يمن دونا يا الله تجدونا بنك قيامة يوم الجمع لا ريب فيه يوم التغابن يومئذ تعرضون إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا مالك أسوير مالك تدي بطدوي ترى مالك أسنى محمد لو تقول وليه هي أنا لها أنا لها أنا لها كدعاء الصلاة قبل يا وأنيقا كبريدي صلاة قبل يا وأنيقا كشفاعتي صلاة قبل يا وأنيقا حديث قال النبي جن واكلها نبي كستي إلهي أدوية دوشيدا دعاء قبل إلهي سي نبي والب دعاء سي أدوية كسو استعمالي أنا قلنا دعاء دي مالك قيامها خلقي ودك تقوى في عدنا برسول كصلي النبي جن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مالك قاسو نبي محمد إن حسوسنا يا إن كنا ما تسنيه سيبان اللوني دقنك سيبان اللوني شريعتي سيبان اللوني بل نبي قال الله قد يدو دل يرتو حيوار كان إن يتهدي بسعود نمو حيوار كان متأخر رجعي دب السعود دب النقد بور كان ماي من هذا ظهر وصعته أيين دب السعوته ولا كالأرك دونا فسوف ترى إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار سدح دلنير متعلمين أو دلنير تجامع لها دكتاء أيا أولي دون وتا أو دتك بدها كشك يستونا خوضا أيا كوير هذا المعنى الدون هذا نجاكره بدوين تنور عدل ومحاته سياحين دلحيس تيال بنا ومثلا أرجع دونتي كوهشيين يفولين دونتو بريقة واتيكو سعود جرت بريقة ضبيلها شرع على قوة جري حاجة ضبيش الله ويعب جري هي بربرية يا دانا يا ريج بوتية الدنيا تنا مركز صدق حد دنيرتي وذاك يبي ورستينه كوي رادن أدر كني وبايلوت كنا وإنجنير كنا ودكتور هذا يقول لك يا رانت هذا محاد برت مركز أنا وصل الله ضب ماشان برتيب فكو قصص لنا وحي كوي رادن ضيعت نصف عمرك وحسب التعليم بقى يا رانت هذه واسكا سو عيارتي هذا يقول مركز الله يا بس هذا وجه زين كان وبايلوت هو ديارته كحياة كان هو دكتور هذا كان هو مهندس يبني العمارات قصور بودسا هذا دبال مشقة وتعليم بقى مركز ويرجع ربي مركز بريقي أي وككر صومي بدوينتي أي جوجان أي بدوي كعدة مركز ويك عدة بدو ساس وصبيس مركز صوري عندك لا يشغل شيء بوسكر دقيقة مركز بيجي كسر جستو وحيري دون تقعنتي دكوا مجبتو هل مر صدح لي دلنيردي محابد من دلنيرا oo noloshii hadda ay u bilaamayso jaamacadii ka soo qalin jabiyay oo badweyntii isagoo maraya la yiri markabku u qarnay balka waran markaas hal mar kaliya dhalinyarada wajigiiba badilmay ilintii baa ka daadatay way qayliyeen markaas uu ku yiri markaan nigu yiri yaraantaydii dabaasha ayaan bartay haddaad igu tiraadeen cimrigaaga yaraanta waa soo dayacday anna waxaan ilaahay maanta cimrigiinii baa dayacdeen adigana beeloodnimada ku bax أنا إنجنير نماذج حكم بدباديسو أنا دكتور نماذج كوب بدباد أنا وضباط شيء ما بلاه يا بودي ومثال يعني هذا دور كيسد نبي محمد عليه الصلاة والسلام هدي جيسا يكون ضيشة جيسا أنا أركينا دي بسعود نمو إن عندي بنقولنا هذا دور كيسد ما هو حقيقة ما أنت عداد دوتو ما أنت الدنيا كريم تقاشد أيا الله قرن دونا كيبا دي بسعودها كيف هو صعدها لذلك السنة نبينا عليه الصلاة والسلام أيا كفر أبينا الحمد لله إنكم دتجين المسجد كسوع عمري دتجي خير كجعلاباتهين دتجي دين تدنين يباتهين دتجي نبي محمد جعلاباتهين رمتي وحضو فرد المسجد وجعل إلهي يجعل نبي قادو قبطان مالن
ayuu nabigu arkay asxaabtiisii markuu nabigu weysaystay biyihii jirkiisa ka daadanayay ayay gacanta hoos dhigteen markaabay isku masaxayeen oo ka barakaysanayeen sala allahu calayhi wasalam markaabuu nabigu yidhi maxaa sidan u samaynaysaa ii sheeg ila nabiga wax jirkiisa wixii ka baxo dhan saxaabadu dhulka uma ogolaanaya tintuu iska xiiray way qaybtameen qandhuuftuu tufay gacan nin bay ku dhacday wejiguu marsanayey kaa qandhuufta nabiga haleelay ee wejiga marsaday mid baa dul joogo isagana kasii marsanay dharkiisa ku masaxanayay maradii nabi maxamed uu xidhay saxaabigii yidhi nabi allow ma axsanahaa alla marada qurux badana waan u baahanahay isii waa ku siiyey buu nabigu yihi ii kaadi aqalkiibuu nabigu ku noqday intuu soo saaray go'i ayuu laalaabo ninkii buu siiyey saxaabadu ninkii way qabsadeen wallaahi ma axsantay bay ku yidhahdeen maad wanaajin waad arkaysa nebigu marada inuu u baahnaayo markii hadiyadda loogu keenayba waa kii aqalka galee soo xidhee maxaad u weydiisatay nebiga waad ogtahay nebiga wax lama weydiisto haddii la weydiistana ma yaqaana nebi maxamed wallaahi waxaan u weydiistay inaan dhar ka dhigto oo ku xaragooda igama yahay waxaan u weydiistay inay maradaasi kafani noqoto kafan maadaama jirhkii nebi maxamed uu taabtay kafan baan ka dhiganaya buuli taasay nebiga uga barakaysanayeen maradiisii qandhuuftiisii biyihii jirkiisa ka daatay ayay ka barakaysanayeen saxaabigii markii biyihii nebiga ka daatay hoos dhigtaa gacmaha markaabuu nebigu ku yidhi maxaa inagu ajburay inaad biyaha jirkayga ka daato aada isku masaxdaan markaasay ku yidhaahdeen xubullaahi wa rasuulihi jacaylo aan u qabnay ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa sidaa u samaynayna bay ku yidhahdeen markaabuu nebigu yihi dhegaysta haddaad ilaahay iyo nebiga aada jeceshihiin oo doonaysaan inaad jeclaataan markaad sheekaynaysaan buu nebigu yidhi run ku sheekeeya markaad layna aaminana amaanada ilaaliya buu nebigu yidhi haddii lagu aamino amaanada ilaali waa inaad noqota amaano xaafid haddaad sheekay run ku sheekee haddaad ballan qaadana ballankaa ka bixin buu nebigu yidhi ilaahay nebi maxamed inaad jeceshahay waxaa u daliila akhlaaqdaada saad ula dhaqaysid waalidkaaga saad jaarka ula dhaqmaysid saad saaxiibada ula dhaqmaysid saad walaalaha ula dhaqmaysid saad muslimiinta ula dhaqmaysid nacam idaa kaana calayka arbaca buu nebigu yidhi afar sifa haddaad leedahay adduunye kaama tegin buu nebigu yidhi xadiiska weliba xadiiskaas sanadkiisu waa daciif laakiin lilfadaa'il waa la isticmaali karaa afar khasladood buu nebigu yidhi haddaad leedahay khayrkii adduunyada yaalla kaama tegin waad haysataa sidqu xadiiin haddaad tahay nin run sheega وحفظ أمانة هداتا يقف أمانة حافظة وحسن خليقة هداتا يقف طبيعة ونكسن هداتا يوقف وعفة في مطعم حلال مرته أفر تاسف وقف مؤمن قعدوا لي هي خيرك أدوية يا لي وناقي أدوية يا لي كما تجيب النبي يقول حبك كما تجيب وحول بقول قالوا هيستوي رون كشاكي هدات شاكي رون كشاكي هدين لقوا آمنوا أمانة إسكايل أنت مسلمين أمانة بحي وركان تصدق على من يقول صدرا سواء نقول دري نبان العقد ديبت وقصد على بدنا دلنا كذا على ذات كلام ذات كلام الحديث بركاز دور بل بانو بحياة بادية بانك أنا أكونت كم اللي هي نسكوا حنا هاي وده ده العكس أي حاجة بكين وقصد مرحبا وصار نقضي وحوار كنيك يوم مقاحي وين توفر تكشخين مقاحي دي وبرقانسن وشغله كبرقانسن مركاسو السلام عليكم عليكم السلام عصر كي بعدنا وصلنا السلام عليكم وانكم مشغول سن عشاء يجيب ويمد وحور ورده ما حد داف يقول لعقتي بريغا كو ديبتي يا نص سعداي لعقتي هذه وطا شقينيس وطا شقينيس ويا والمحل هذا لعقتي هذه وطا شقينيس ورلعقت امانه هيدي شركه من وهين امانه كو ديبتي واكو امني ولا لعقتي ديسي مركاس اوري سو دعوي مخلكن لعقت لغو قاده مقاحيهنا دشيسا wuxuu ku qortay inna fatahna laka fathan mubina ayda meeshii ma la dhigay war ma la dhigay jaalayaasha kama aragtin tawakkaltu ala allah wa kafa billahi wakila mis jaadiya maxasku keen ayada quraanka hatta jaalayaasha ka dumarkaysa inna fatahna laka fathan mubina quraanka meeshii lama dhigin hadduu qofku amaano lahayn buu nabigu yidhi qofka amaano aan lahayn iimaan ma labo rasuulku markaa buu nabigu saxaabada wuxuu ku dhiirigeliyey jacaylka ilaahay nabiga aad u qabtaan wuxuu ku noqonayaa dhabmayni sheega markaad sheekaynaysa run ku sheekaya
markaad amana laydii dhiibtana amanada xafida haddaad ballan qaadana ballanka buuxiya buu rasuulku yidhi markaa masaajidkaa soo camirnay iyo khayrka aan dhegaysanayno waxay naga tahay waa diin jacayl alla jacayl nebi jacayl bay naga tahay sidaa daraaddeed zamanku waa zaman adag waxaan ku baqanaynaa marka xagga ilaahay fafiruu ila allah xaaladdu waa dhaweeto waad argayseen adduunka xaalad yar baa soo martay oo ilaahay waa inaga dabaylaha ilaahay naga raaciya dabaylaha wadannadu xanuunka hayana allaha ka qaada amiin dhahada laakiin dad badan way argagixeen wadano badan oo muslimiinana masaajiddii bay quful ku jebiyeen yaa muslim hadday dhibaata ay timaado halkee buu nebi maxamed ku ordi jiray idaa xasabahu amrun fasaca ila asalaa hadday nebi maxamed dhibaata la soo dharisto salaad buu nebigu gelayay xataa hadduu arka nebigu roob dabaylo wata maskiidku soo galayay uu ducaynayay ilaa uu roobkaasi uu dhaafo dabayshu ay rafacanto nebigu maskiidka kama soo baxay istaciinuu bisabri wasalaa hadday dhibaata adduunyada dusheeda muuminka la soo dharisto inuu argagaxo maaha waa inuu yidhahdo annaku ilaahay baan haysanaa ducaan haysanaa qur-aan baan haysanaa xidhiidhka ilaahay baan haysanaa daawo mardaakum bisadaqa kiina inaga bukoodana sadaqada ku duwaya buu rasuulku yidhi acmaashaasuu ilaahay rasuulkiisuna amraya dayna diinta ilaahay qabsanno ku sugnaano zamankan waa zaman adag waxaa laga yaabaa zamanka ka dambeeyana in xaaladdu ay sii adkaani doonto in fitantu ay sii ziyaadi doonto ayuha almuslim waxaad ku baxsataa marka ilahay xaggiisa u baxso insha allah dhahada yaa u diyaar inuu xagga ilahay u baxsado fafiruu ila allah ilahay baan ku ordaynaa xaggiisa waxaa kaloo ku ordaynaa diinta ilaahay dadaalkeegaan ka shaqaynaynaa ijtimaaceennii baa inoo soo dhow bisha sebtembar aakhirkeega ijtimaac la rajeynaya in la qabto haddii alla yidhahdo dadaalka diinta insha allah dhegta keliya diinta siini mayne diinta qawlan wa ficlan wa maalan wa waqtanba diinta waa siinaynaa yaa u diyaar waa ilaa haddii kale waxaan la mid noqonaynaa ninkii reerka ku soo weyday martiqaadka loo sameeyey halkii neef la qalayna uu arkayay oo la karinayo markii loo soo dhigayna labadii dhagood baa loo soo dhigay maa la marti qaaday ninka hor maa la marti qaaday dee sidaa ayaana ka dhigine bal insha allahu tacala ijtimaaca inaan kasoo wada qayb galno oon ilaahay dartii 4 bilood 2 bilood 40 cisho hadba intaan waqti haysana inaan ilaahay dartii u bixino ayaan niyoonaya bal gacanta taago masaajidka oo dhan allah ina barakeeyo waa naftaada ka qaado naftaada u qaad weeyaan muddadan la baxayana nusuus ku timid ma jirto laakiin waa wasaa'ilu dacwa sida madaaristu wasaa'ilu leedahay tacliintu wasiila ay leedahay dhakhtarnimada barashadeedu wasiila ay leedahay kadalika dacwaduna wasiila leedahay wasaa'ilu dacwa waxaa ka mid ah aalaadkan imika anu beriga hore waan diidi jiray laakiin beryahan waa igu qasabteenoo waxaa layga dhaadhiciyey inay tahay min wasaa'ili dacwa aaladan haddaad u ogolaatay wasaa'ilu dacwa jamacad ilaahay dartii u socota oo maalkoogii bixinaysa oo kalba tuulo tegaysa oo kuwa qayalaya u tegaysa labadaa wasiilatee baa tii nebiga u dhow bal ii jawaabade tee socota ta aaladanaa socota mise tan dadka socdaa sunii nebiga u dhow lidaalika socodka lagama maarmaayo bal socodka wax bedelaya xaraka lahaa baraka hadday biyuhu socdaan biyahaasi iyakuna way daahir bay noqonayaan ciddii istiraada ka intifaacna iyagoo nadiifay u tegayaan laakiin biyuhu hadday fadhiistaan way wasakoobayaan carfigoogaa isbedeli midabkoogaa isbedeli dhadhankoogaa isbedeli deedna biyahaasi waa ka gur weeyaan socodka ayay ummaddani qiimo ku leedahay saafir tajidu ciwadan